كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون marka bani aadankii ballankii ilaahay uu la soo galay arlada markay yimaadeen badana ballankii way iloobeen way halmaameen rahmatan minhu jalla wa ala ilaahay isagoo bani aadanka u naxariisanaya oo mar walba adoomihiisa khayr mirayo jecel ayaa ilaahay jalla wa ala wuxuu u soo dejiyay kutub waxauna u soo diray maaragtaan ergo boqol iyo intaasoo kun oo nabi oo 312 rusul ay ahayd iyo intaasoo suxuf iyo intaasoo kutub oo shariicada oo ilaahay jalla wa ala bini aadanku samada uga keenay ayaa ilaahay bini aadankan u soo diray sabal bini aadankan ballanka ilaahay ay la galeen aynan u halmaamin mar walba u xasuustaan oo quraankii aayaadka ilaahay lagu gartabay culimadu yiraahdeen waa laba aayadood midna waa midan inala hadlayso waa quraankii midna waa midan maaragtaan aan arkayno aayaatullaahi almanduur iyo aayaatullaahi almantuuq aayaadkan mantuuqa waa quraankan weeyaan haddaan quraanka u fiirsato 80% quraanku wuxuu bayaaminayaa ilaahay cadamadiisa iyo nolosha dambe ee weyniga badan buu quraanku ka warramayaa juz'amo oo kaliya 19 meelood baan u malaynayaa inay tahay ilaahay inuu ku sheegay inuu cirkiga dhulka isagu abuurtay hal mar oo kaliya hadduu sheegan lahaa way ku filan tahay xujo cid ilaahay ku haysatana ma jirto laakiin limaada allah azza wa jalla muxuu ugu celcelinayaa uu leeyahay cirkiga dhulka aniga abuuray waxa laga dhaadhicinayaa tawxiid ilaahay horta garo ilaahay macrifo ilaahay dhaba u garo haddaad ilaahay garata marka inaad adeecda ku dhib yaraan marka bani aadankan muhiimadda ugu weyn adduunka loo keenay waa in ilaahay aynan iloobin waxaan adduunka aad arkayso oo dhan waa ikhtibaar adaa lagugu eegaya nin saalixiinta kamid ah inankiisa markuu la dardaarmayo wuxuu ku lahaa laba weliga ha iloobin buu ka yidhi labana weliga ha xasuusan lacallahu luqmaan alxakiim inuu ahaa marartu بكثير من الأنبياء بقول النبي فربضن أيان صحبة الله صويا شيء مجالس تودي سدد مسألة أيان كسوة فائدة استبودي يقبر إنك يجيو هذا صلاة أتوكن سنة قلبك أجا إلالي ده هذا الله فرد أنا عرب كأجا إلالي أنت هذا عنا سنة علوش هذا إلالي أقل ده هذا قشنا عندها أجا إلالي بكويري هذا صلاة أتوكن سنة قلبك أجا إلالي وقلبك أجا يونا ملك الأوجي سنة قلبك أجا صلاة دحلة ده هكون مشغوله الله عز وجل الله هذور جوكتو قلبك أكون مشغولي داد هذا الله فردنا وحكوري عرب كاغا إلى الصو أقل داد هداد قشنا عندها إلى الصو انت هداد عنا سنة ما ركتاني علوش هذا إلى الصو لبنا ولقاها اللوبين بوكيري لبناها حسوسا لبدا وكوريها حسوسا ولا بدي دادك وناقا عدو السميسد ولقاها حسوسا بوكيري لباتدا عدقا يكو قيستانها حسوسا بوكيري اثنان لا تنساهما واثنان لا تذكرهما بكري لبا ولقاها حسوسا هذا القادم بقى إحسانك إلى الناس وإساءتهم إليك وناقدتك أدو سميني سد ولقاها حسوسا هذا مدى أد وناقو سميني سد إلهي درتي أقو سمي هذا علم بري سد إلهي درتي أبر هذا إحسان سميني سد إلهي درتي أقو سمي هذا شفاعات قادي سد إلهي درتي أقو شفاعات قاد هذا واحد ديميني سد إلهي درتي أقو ديمي واحد دتك أقبني سي وناقا مركا وهريس وأنا ذو قبتها الله درتي dhibaatada dadku ay kugu sameeyaan waliga xasuusan buu ka yiri iska ilow waxaad ahaataa saliimu sadri qof qalbigiisu mar walba uu yahay nadiif dadka ihsaanka aad u sameynaysid haddaad mar walba aad dadka ka sugta inay abaal ku celiyaan waxaad noqonaysaa inaad waxaad halis u tahay inaad ku dhacdo mannaan gallad sheegtay inaad noqoto halis u tahay gallad sheegtana waayo هو إلهي صدح واكي نبي قولها عليه الصلاة والسلام إلهي مالك قيامها صدح لحظ مايو حقوقنا إلهي دايمون مايو ذنبنا إلهي كرداف مايو عذاب كلول أودرنا وإليهين صدح جرب نبي إريدا كعليي أبو ذر الغفاري أيايري خابوا وخسروا من هم يا رسول الله
way hoogeen wayna khasaareen kuwaasi ayay nabi allah noo sheeg markaa buu nabigu yidhi almannaan waa ka dadka u gallad sheegta buu rasuulku yidhi gallad sheegte qofka mar walba dadka yidhahda waxaasaan kuu sameeyey anigu xaabaan kuu qabtay anaa magaalada ku soo geliyey sidaa ku lahaa dadka la mid buu ku lahaa anaa qof ka dhigay kan maad arkay buu yidhi dadka anaa qof ka dhigay buu yidhi oo marka hore ma dameer buu hamsadaayeer yani kalaam hadal yar oo basiida qofka si dhib yar uga soo baxaya khatarna uu ku galaya qof anaa sameeyey iyo anaa wax kaa dhigay iyo anaa dadka kugu daray iyo haddaan aanu jirin maba jirteen iyo may waa inaad ahaataa marka u horeysaba haddaad ummadda wax u qabanaysa ilahay darti wax ugu qabo laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuura ikhlaasku waa cajiib allah ina siiya ikhlaaska man camila camalan ashraka maci gayrii taraktuhu wa shirkahu xadiis alqudsi ilaahay waa kii lahaa man camila camalan qofka camal sameeya adduunka dusheeda camalkaasuu sameeyeyna aniga cid kale igu ladhay baa ilaahay yidhi ii shariig yeelay camalkiisa iyo shirkigiisa qiyaamaha waan uga tagaa baa ilaahay yidhi saddexda qof ee ugu horeysa uu nebigu sheegay sal allahu alay wasalam ee naarta lagu tuuri doonana waa saddexdee waa caalim waa taajir sakhi ahaa iyo nin mujaahid ahaayoo loo malaynaya inuu diin u dhintay saddex camal oo waaweyn bay la imanayaan kan waa mujaahid buu ahaa kana wuxuu ahaa caalim buu ahaa ummaddu cilmiga berayo qaari buu ahaa kana wuxuu ahaa maaragtaane sakhi maalqabeen ayuu ahaayo xoolihiisa u bixin jiray saddexda camal ay la yimaadeen ilaahay hortii saddexda camalba waxaa ku ladhnaa maaragtaane shirki baa ku ladhnaa deedna markaasaa ilaahay odhanayaa aduu waad u dhimatay waad soo dhimatay laakiin aniga dartay umaad soo dhimane in lagaa yidhaahdo hebel waa nin dagaalyahan ayaad u soo dhimatay waana lagu yidhi adiguna qaari baad ahayd qur-aan akhris fiican ama waacid ummadda wacdiye ayaad ahayd oo dadku ay hadalkiisa dhegaystaan wacdiga markaad jeedinayseed ummadda wax u sheegaysa ama aad wax baraysidna aniga dartay umaad barayne hebel waa nin caynkaasoo ummadda wax u sheego carab fasiixi ha lagula yidhahdaa islahayd kanna waxaa la odhanayaa adiguna nin maalka bixiyaad ahayd oo meel kastoo khayra xoolaha waad ku bixinaysay hadday masaajid tahay hadday madaaris tahay hadday aytaam tahay laakiin waxaad u bixinaysa waa hebel waa sakhi ha lagu yidhaahdo saddexdiinnaasi waa laynii yidhi adduunka dusheediiye agtayda waxaad ku leedihiin waa naarta ku tuura la odhan doonaa xadiidka abaa hurayra radia allaahu canhu markuu sheegi jiray uu ooyi jiray uu kici jiray uu dhici jiray waa la kicin jiray uu ooyi jiray uu kici jiray markay naftu ay ka bixi inay ka baxda halis u gaadho ayuu xadiidka nebigu ka maqlay uu sheegi jiray lilaahi waa inuu ahaadaa qofka muslimku waxaa dadka u qaban ilaahay dartii ugu qabo waa inaad ku doontaa camalkaaga aakhiro camalkaaga adduunyada ha ku doonin cabdillaahi ibnu mubaarak raxmatullaahi calayh ayaa lagu yidhi maninnaas dadi ayay yihiin noo sheeg markaasuu yidhi alculamaa dad haddaad i weydiiseen dad waxa weeyaan waa culammada waa dadka ilaahay cilmigiisa yaqaana waa dadka ilaahay yaqaana ee aakhirada yaqaana ee shareecadda islaamka yaqaana dadkaasuunbaa dada markaasaa lagu yidhi famanilmuluuk kuwa haddii aad dad ku sheegtay haddana boqorraduna ayay yihiin markaasaa yuu yidhi azuhaad waa dadka zaahidiinta ee adduunyada ka zaahiday ee adduunyada bedhbidhkayga waxa dul yaalla waxba aanan u arkayni markaasaa lagu yidhi ma tawaaducana bal noo sheeg tawaaduc muxuu yahay markaasaa lagu yidhi attakaburu cala alaqniyaa dadka hantiilayaasha oo agtaada aan waxba aad u arkin oo agtaada qiima aanan ku yeelan taasaa tawaaduc la yidhahdaa buu ku yidhi markaasaa lagu yidhi faman isufahaa dadka sufahaduna ayay yihiin maangaabka caqliga aan lahayn wuxuu alladii ya'kulu diina biddunyaa waa qofka magac diineed xambaarsan laakiin magacaa diineed haddana dadka adduunyo kaga doonay wejigiisaa diineed adduunyada u isticmaalaya kaasaa safiiha buu yidhi fanuxsin dadka haddaan wax u qabanayno haddaan wax u sheegayno haddaan wax barayno haddaan ixsaan u samayno haddaan infaaqinayno waxay naga noqonaysaa waa ilaahay dartii waxaa kaluu ku yidhi ninkaasi inankiisa markuu la dardaarmaayey dhibaatada dadku ay adiga kugu sameeyaanna ha xasuusan buu ka yidhi waxaad noqotaa qof saliimu sadri qalbi fiican noqo qalbigaaga waa inuu ahaadaa nadiif mu'minka qalbigiisu غل iyo xasad iyo buqdi waa inuu ka ahaadaa saliim
وكي النبي لها حديث في السنن نين أهل الجنة إنه سو بحدونا nin saxaabada kamida soo galo soo weysaystay saxaabadu ninkii bay fiiriyeen hadana maalin labaad buu nabigu nin ahlul janna inoo soo gali doona isla ninkii baa soo galay hadana maalin saddexaad buu nabigu nin ahlul janna inoo soo gali doona isla ninkii baa soo galay Abdullah ibn Umar ibn Aas radiyallahu anhuma ayaa intuu socday buu ninkii marti u noqday wuxuu yiri aabahay baan isa soo diinay in marti qaad markaasuu marti qaaday aabihiina ismay soo diideen wuxuu rabay kaliya inuu arko bal ninkani أعماش وكم متيستي إنه نقد أهل الجنة هسوء أركتد بكويري هسوء أركتد بوصلها ياكو خير كي كوكلا ديانيين خير كي كوكلا بدينيين خير كي إسكاك ديانيين إن أقول لكن ما أنت محن كوكلا ديانا نك زمن كي نندت كي أدوية أو ترتميان أدوية كلا بدينيين